السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوك ميل بأجوتان وإذن سلامي عاو حاج عليستي إنا إذن قيبسدو حديث أن أركي أو مهمة إيه ليدهي أنا كو أركي مسلمين بدن أيغو سمين آيان طبعا وحاليا با إنينا أوغين أما إنا وليقودو إيه مقلين لكن أنا يران تيدي إلا هذا مقل جري عاون إندهي كل عدي مركو حاج عليستي إن شاء الله تعالى حديث كان إنا إذن قيبسدو idinkana inaad sii gudbisaan qofkii oo xadiiskan oo qalad sameyn jiray inaad caawisaan inuu saxo insha Allah ta'ala maadaama nabiga uu amraayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wama ataakum ar-rasuulu fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu yani wuxuu nabiga idin keenay qaata wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam idin ka reebay ina ka taga ka fogaada nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay xadiiskan waxa laga soo wariyay xadiisku wuxuu ku qoran yahay رياض الصالحين وقرن يهي كتب كوات أي النبي صلى الله عليه وسلم حلقة سورية مركب بيها العبايو أما الشاه أما عبتان أما باقولي أما كوب وحكو عباي ست كاسا أي النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء يا هبك اللو عبايو يصير له أقوليه إن لو عبو أبو سعيد الخدري أي وحلقة سورية إنه له النبي صلى الله عليه وسلم وحو نجنا هيي أم وحو ديدي إن أفوفنو wax sheeg aan ku cabeeno haduu baaquli yahay haduu koob yahay haduu wax kulul lagu cabaayo ama qabo waxay ahaataba ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo diiday inaan afuufno inaan dhahno waxaan xustaa hooyooyinka markay anaga aan yareen shaah markuu kulul yahay shaah markaas nolol afuufu jiray inala dhaho si uu shaah u qaboobo marmarna waxa la sameyn jiray laba koobka la isku celcelin jiray maanta dhan koobkan kan ku celi si uu koobkii shaahi qabow u noqdo oo caruurta loo siiyo hooyooyinkana way afuufu jireen ay ku dhihi jireen laga yaabaa may ogaan ilaahay dambi dhaaf hasiyo insha Allah ta'ala laakiin maanta ogaana insha Allah ta'ala inuu nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo lagu soo wariyay Abu Sa'id al-Khudri inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu naga nahay wuxuu diiday in shayga aan biyaha ku cabeeno inaan afuufno markaas ninba wuxuu yiri ya rasuulullah mar koobka ama shayga biyaha ku cabeeno waxaan ka arkaa waxyaalaha wasaq ama qashin oo ku dhex jiro marka taas maxaa ka sameeyaa rasuulullah markaas uu dhahay waxa sameeysaa koobka ama qashinka ku aragtid waxyar ka daaday qashinkaas ka daaday kadib cab markaas ninka wuxuu ya rasuulullah hadii aan ka daadiyo koobkaas shayga yar ku soo haray hadii intaas yar aniga harad ma iga celinayso ama on iga ma celinay inta yar matqana marka maxaan sameeyaa rasuulullah markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay marka daadisid wax ku soo haray koobkaas hal mar ha fuuqsan kow dheh laakiin saddex jeer ka dhig mar kastaba in yar cab bismillah dheh cab afka ka dhaqaaji koobka hadana waxar cab hadana ka dhaqaajay hadana waxar cab saddex jeer sidaas sameeyo dhahay ilaah ku barakeenayo Allahu akbar isla xadiis kale ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay oo waxa laga soo wariyay ibn Abbas wuxuu dhahay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu inoo diiday shayga aan biyaha ku cabeeno ama shayga aan wax ku cabeeno waxay noqotaba shaygaas in aan ku neefsano ina neeftin aan ku neefsano mesela ahaan marka shaah cabeeno shaah anagu afka noogu jiro oo aan ku neefsanayno shaahi anagu af ka qaadan taas lama ogolo shaaha adoo cabaysid ama biyaha kulul ama maraqa ma la ogolo inaad ku neef qaadatid ma la ogolo iyo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay wuxuu inoo diiday inaan shaahaas ama shayga aan cabeeno oo kulul ama qabow in aan ku neef tuurno ama inaan afuufno inaan dhahno Allahu akbar diinta islaamka waa nicma baraka waa diinta islaamka waxaan la barayaa habkan cuntada u culin lahayn habkan shaah u cabi lahayn habkan u seexan lahayn habkan u dukan lahayn habka aan xaasaskeena xaashno habkan aan u macaamulo lahayn habkan ula tagi lahayn oo nabara diin islaamka habka sadaqada aan baxsan lahayn habkan u seexan lahayn habkan u socon lahayn habka aan u labisan lahayn waxaasoo dhan waxaan barayaa diinta islaamka Allahu akbar Allah azza wa jalla quraankiisa wuxuu ku dhahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina maanta diinta islaamka idin siiyay diinta islaamka raali idin ku noqday yaa ka noqday Allah azza wa jalla ayaa wuxuu raali inagu noqday diinta islaamka inaan ogolaano inaan qaadano oo diinta islaamka waa diinta kaliya oo siraata mustaqimka oo raacsinayso waa diinta kaliya oo jannada firdaws nasiinayso insha Allah ta'ala marka waxa lagu barayaa
shaahi bari hore afuufi jirtay uf dhihi jirtay in uu nabi sallallahu alayhi wasallam uu nahiyay uu diiday marka anaga muslimka maxaa loo baahan yahay wama aataakum rasulu fakhuduuh wama nahakum canhu fantahu wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam inoo amray inaan qaadano wuxuu naga nahiyay wuxuu naga reebay inaan ka fogaano ula socdo insha Allah taala dad badan way ogyihiin inaan la sameyn karin dad badanna maanta ay caawi ogaanayaan ilaahay tawfiiqana waafaji insha Allah taala dhammaan meel ba joogtaan waa idin salaamay siina gudbiya walaalaha kale ha ka faa'iideystaan ogaaw in la ogol yahay gacanta midigta inaad ku cabtid aan bidix la ogolan insha Allah taala meel ba joogtaan waa idin salaamay aniga walaalkiina cali macu shariif السلام عليكم ورحمة الله وبركاته